السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. si fiican noola dhagaysta gabadha tan qisadeeda aan weli guursan. gabadhani mayse guursan, waxa ilaahay rasuulkiisa amreen ayay samaysay, bedel wanaagsan baana ilaahay siiyey, waxayna noqotay haweenay milyandheer dhinac walbaba adduuniya aakhiro. qisadani waxay ka hadlaysaa gabadh waxay leedahay waxaan ahay 20 jir, gabdhaha ila dhashay aniga ugu weyn, wiilal badan baa albaabka gurigeenna soo garaacay ayagoo aniga i doonaya ayay tiri. wiilashaasna wiilal aad u fiican bay ahaayeen, waa wiilal wanaagsan oo gabar walba ay ku riyoonaysaa in ay hesho. wiilashii soo doonayay midkii aan islaha waa ugu wanaagsan yahay ayaan ka doortay bay tiri. doonitaankii baa dhacay, meherkiina waa dhacay, hase ahaatee xafladii arooskiya qalgalka ballan ayaynu u samaysannay. laakiin ilaahay arrin kaluu qadaray oo doonay ka annagu aan doonnay ka duwan. waxay tidhi hooyaday waxaa ku dhacay qallal oo waxay noqotay mid fadhiisatay, ma awoodo dhaqdhaqaaq, hadal xitaa ma awooda bay tiri hooyaday. waanu adeegi jiray bay tiri hooyaday oo marra kursi ku fadhida marra sariir saaran oo aan dhaqdhaqaaqayn xitaa hadal iska daa. anaa cuntada iyo cabbitaanka qacantayda ku siin jiray bay tiri, waana u dadaali jiray. wiilkii soo doonay ee laygu meheriyey waxaan ku ballannay isku raacnay bay tiri aan dib u dhigno xafladda arooska iyo aqalgalka, waayo daruuf aan markii hore filayn ayaa igu timid bay tiri. hooyaday dhibaatadii xanuunkii haleelay wuu sii socday. maalinkii dambe naftaydan su'aal weydiiyey bay tiri, anoo dhahaya haddii aan guursado yaa u istaagaya adeega hooyaday, yaa aniga ka gadaal ilaalinaya. kadib waxay tidhi nadar iyo dhaar baan waxaan ku maray inaan noloshayda noolaado anuu adeegaya hooyaday. naftaydan kula ballamay bay tiri awooddayda iyo wakhtigayga inaan geliyo u adeegayo khidmaynta hooyaday, anoo hooyaday raalli gelinaya, ilaahay ajar ka filanaya. markii dambe waxaan go'aansaday bay tiri meherkiinaan fasakho oo wiilkii waxaan ku idhi anugu hadda guur oo ma soo jeedo, meherkiina waa jebinaynaa, wixii xoolaa ay siisanee waa ku siinayaa, hooyaday ayaan rabaa inaan ag fadhiyo ilaa ilaahay arrinka xukumayo. waxay tidhi hadda inaan guur iyo aqal dhisto oo ma soo jeedo hooyaday daruufta haysataan arkaya. sidii baan ku kala tagnay bay tiri wiilkii. gabdhihii walaalaha ee waa wada guursadeen, dhammaantoodna waa iga yaryaraadeen bay tiri. maalmihii waa isdaba gureen, bilihii waa iska daba imaadeen, sannaduhu waa isbeddeleen, ilaa markii dambe aan gaaray 43 sano. wax 20 sano ku dhow ayaan hooyaday u adeegayey. sannadaha intaa leeg baan hooyaday u adeegayey oo sariir saaran oo hadal xataan karin. noloshaydii iyo guurkaygiina waa iska daayey. markii dambe ilaahay qadarkiis baa imaaday, hooyaday geerideedii baa timid. xanuun iyo rafaad kadib sakaraatulmoodkii baa ku dhacay. hooyaday markii geeridu ku timid waxaan u laqinayay shahaadataynka iyadoo nafta laga siibayo. markii naftu ka sii baxaysay bay tiri hooyaday way hadashay aamus kadib, aamuskaasoo sannado badan qaatay. waxayna igu tidhi gabadhaydiyey ku bishaarayso janno, ilaah baan ku dhaartay ilaahay ku dayaci mayo, bedel khayr qabana rabbi waa ku siinayaa aniga ka gadaal ayay hooyaday ku hadashay bay tidhi. kadibna tawxiidkay qirtay, naftiina sidaas ayay uga baxday oo nolosha ay uga tagtay kadib xanuun qaraar oo sannado badan ay la daalaadhacaysay. dhimashada hooyaday bila kadib waxay soo doonay bay tiri nin hantiila ah oo wanaagsan oo da'da 50 maraya. ninkaasi waa nin ganacsada oo la yaqaano. guur buu isoo bandhigtay bay tiri, anna waa ku raacay. haddabay tidhi 3 ilmood oo mataana ah ayaan u sidaa. waa markay qisada sheegaysay. fadliga ilaahay nimcaday rabbi baan dareemayaa bay tiri, ilaahay baana ku mahadsan. sabirkaygii aan u sabray hooyaday ayaa ilaahay beddelkan wanaagsan i siiyey bay tiri. sabirku waxa weeye mid daawo u ah xanuunnada nolosha dhammaan. qofka hadduu sabro derbi kasta waa jiiraya. sabirku daawo wuxuu u yahay mushkilad kasta oo ku qabsanaysa. arrimaha ayuu kuu fududaynayaa, kuuna hogaaminayaa. culays kasta ayuu kuu fududaynayaa sabirku. rabbina wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu, kuwa ilaahay rumaysanow isbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaqullaha lacallakum tuflixuun. sabra oo la sabartama oo adkaysta oo ilaahay ka cabsada waad liibaanaysaane. qofka sabra ilaahay buu helayaa waddadii u mari lahaa. qofka ilaahay waddadiisa seegana shay walba wuu seegay oo wuu waayey. qofka rabbi waddadiisa qaadana shay walba waa helay oo wax walba hortiisaa la soo dhigayaa. ilaahay sabir aan nagu irsaaqo iyo yaqiin. ilaahayna naga dhigo kuwa rabbi tala saarta, awaamirtiisana ka soo baxa, wax walba rabbi ka reebana kuwa ka hara allah naga dhigo. kuwa cibaadooyinka toosiya rabbi ha naga dhigo. kuwa adduunyada aan ku fitnoobin allah ha naga dhigo. kuwa hamigooda uu yahay aakhiro ilaahay ha naga dhigo. kuwa adkaysi iyo sabir muujiya rabbi ha inaga yeelo. ilaahay ha naga dhigo kuwa waalidkood u baarinimo sameeya, daruuf kastana garab istaaga. ilaahay nagama dhigo kuwa badan oo maanta ayagoo noloshooda iska wata
waalidkoodna dayacay ogana tagay sariirta ama joodariga dushooda ilaahay kuwaasi nagama dhigo ilaahay waxaan weydiisanaynaa astur maalinka qiyaamaha intaan adduunka ku noolnahay markaan geeriyoonayno ilaahay anaga dhigo kuwa tawxiidka ku noolaada tawxiidka ku dhinta tawxiidka lala soo saaro rabbi anaga dhigo nabi maxamed sunnadiisa kuwa raaca intay nool yihiin marka ay dhintaanna jannada kula rafiiqo daris kula noqda xawdkiisana ka caba rabbi hanaga yeelo ilaahay agtiisa kuwa lagu xuso oo laga jecel yahay ilaahay hana jeclaado qalbigeenna rabbi hanooga buuxiyo nuur iyo yaqiin dhinac walba hanaga dhiga nuur iyo yaqiin dhinac kastaba rabbi hanaga xafido xumaan walba allah hayna ka xafido meela joogtaan baa allah idan barakeeyo jazaakumullahu khayran baa idan leenahay